السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اعتقاد النقل وإرهال هذا الحمد لله رب العالمين. إلهي ومهد سبحانه وتعالى نقول لي maalintii labaad inuu inoo qabsoomo carwada buugeedka Garoowe. waxaan ka mid ahaa asxaabtii ka timid magaalada Boorame. waxaan filayaa qolada cirka marka laga reebo annaga ugu kiiloomitir badnayn in ka badan 12 saacadood baan gaari soo saarnay sida aan uga qayb gali lahayn carwada buugeedka. waan ku faraxsanahay inay noqoto markii ugu horeysan ka soo qayb galo carwada noocan oo kale ah ee magaalada Garoowe ka dhacaysa. nasiib uma helin labadii hore inaan ka soo qayb galo, laakiin alxamdulillah ku faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galay. waqtiga oo kooban toos waxaan u geli doonaa ujeedada buugga iyo waxaan halkan soo istaagay in toos u geli doonaa insha Allah. kale inta reer Garoowe waa isma cusbin, laakiin dadka meelaha kale ka yimi un baan isbari doonaa. magacaygu waa Maxamed Saalax Maare. waxaan ku dhashay gobolka Sanaag, laakiin hadda waxaan ku noolahay magaalada Boorame oo aan iskuulkaygii iyo jaamacadeydaba iskuulkaygiina ka dhameeyay, jaamacadeydana hadda ka wado. laakiin waxaan soo haystaa xaqiiqna aan ahay inaan ahay nin Soomaaliya, dhammaan Soomaaliyana ay wadankayga tahay. ugu horeyn iyo markastaba waxa Ilaahay baa mahad subhanahu wa ta'ala hal ahaade hal abuure halka abuure hala haleeye si hala haleeye inta hal iyo hal isku sheegto halnimadooda halku ahaade. waan idin fasiri doonaa inta hal ahaade waa Ilaahay waa keligii. hal abuure aadam ku abuuray, halka abuure aadam feedhiisi waxaa ka abuuray. hala haleeye wuu ina sii tarmiyay, si hala haleeye wuu ina sii badiyay inagana halka joogna. inta hal iyo hal isku sheegto halnimadooda halku ahaade. qof kastoo yiraahdo hal baan ahay isaga halku ah. saddex baan kala saari doonaa ujeedada aan ku taaganahay. koow waan yara araaranayaa. labo araartii kale waan soo dhameeyay, waan yara afeefanayaa. waxaan ku afeefanayaa wixii aan khaldo shaydaan bay xaqiisa ahaatay, wixii aan saxana Ilaahay baa agtiisa ay noqotay. saddexaad waxaan geli doonaa ujeedada buugga oo aan halkan soo istaagay. dhiganahan markii ugu horeysaan Garoowe keenno maaha, horaan ugu soo bandhignay. ugu horeyn dhiganahan wuxuu ka kooban yahay 120 baal. jaldigiisa sare wuu madow yahay. haddaad aad ugu sii fiirsatana waxaa ka muuqda ilmeynaysa. magaca buugga aan u bixinayna waxaa la yiraahdaa mugdiga nolosha. dadka qaar baa ay weydiinayay marka laga yimaado in dadku u haystaan inaan jacayl ka qoray. su-aasha ugu badan ee la weydiinayay waxay ahayd maxaad iftiinka nolosha wax uga qori weyday? iftiinka nolosha wax laga qori karaa marka la ogaado mugdigu wuxuu yahay iyo halku ka haysto. ugu horeyn qoraalka waxaan bilaabay 2012kii. buuggeygii ugu horeeyay waxaan soo bandhigay 2013kii. dhiganahan waan dhiganihii afraad. buuggii ugu horeeyay waxa la oran jiray Gabadhiyo Guur, kii labaadna waxa la oran jiray Hogol, kii saddexaadna Naqsoor, kan afraadna Mugdiga Nolosha. iftiinkuna ku xigi doonaa. buuggan wuxuu soo baxay bishii saddexaad sanadkan ku guda jirno. buuggan wuxuu ka hadli doonaa laba ujeedo oo u gudub ah wadankeena. haddii laga hadlayna ay yar tahay, I think saan haystaan inaan ciidba ka hadlin. laba ujeedo waxay tahay laba ujeedo ka hadlaya oo waxay tahay ujeedooyin badan inta badan ka hadalno, laakiin sidii saxda ahayd ama sidii dhalinyaradu wax ku qaadan lahayd ayaan uga hadlin. dadka qaar si fiican uga hadlaa way jiraan, laakiin Soomaalidu daaqadun bay wax ka wada eegtaa, albaabna ka wada baxdaa. buugga wuxuu ka hadlayaa tahriibta iyo hooyada. labadaba wuxuu ka hadlayaa si ka duwan sidii hore aynu uga hadli jirnay. wuxuu ka hadlayaa hooyada danyarta ah duruufta waqtigu haysto. dadku waa kala jeeb fiican yahay, hooyo waa hooyo laakiin waa kala jeeb fiican yihiin. hooyada danyarta duruufta waqtigu haysto
iyo inanka dhalinyarada ama gabadha gashaantida ee isbiday inay caqli leeyihiin dabeetana ku fikireen inay waddanka ka tahriibaan dhibaatada ay u marto hooyada danyartii sidii wiilkeeda magafo uga sii dayn lahayd dhibaatada ay u marto sidii ay wiilkeeda uga samata bixin lahayd duco iyo deeqba inuu ka dhex baxo ninkaa xunin magafaa u bixina ilaahay baan wax gafine buuggan ugu horreyn waxaan kusoo bandhignay magaalada Garowe bishii 3aad 7deedii maalin Jumcaha bandhigii labaad wuxuu ka dhacay Boosaaso bishii 4aad 10keedii isla sanadkan ku guda jirno maalin Jumcaha bishii bandhigii saddexaad waxaan ku qabanay Boorama 22kii bishii 5aad isla sanadkan ku guda jirno bandhigii afraad waxaan ku qabanay magaalada Ceerigaabo 27kii bishii 6aad maalintii saddexaad ee ciida isla sanadkan ku guda jirno laakiin hiigsiga uu buugani doonayay inaan gaadhsiiyo waxay tahay inuu Soomaali cid kastoo af Soomaali ku hadasha uu ugu gaadho gurigiisa iyo qolkiisa insha Allah taala buuggan bil gudaheed ayuu gaaray magaalooyin ay ka mid yihiin Laascaanood oo aan geynay siday uga faa'iideystaan maadaama aanay noo suurtageli karin inaan Soomaaliya oo dhan bandhigiyo ugu qabanno laakiin waxaa noo suurta gashay inaan magaalooyin badan aanu geynay intaan u sii dhiibnay annagoo dad u wakiilanayna Laascaanood Nairobi Hargeysa Gaalkacyo Baydhabo Boorama Muqdisho Uganda Dubai Garowe iyo Boosaaso buuggan sidaan hore idinku sheegay wuxuu ka hadlayaa hooyada danyarta ah duruufta waqtigu haysto iyo inanka dhalinyarada ah isbidayna caqli leeyihiin dabeetana ku fikirayna waddanka ka tagaan iyagoo aan hooyadoodu turayn waxaan ku qoran 7 qiso aan waddanka ka ururiyey waxaan qorayay sanad iyo 2 bilood laakiin qoraalka buuggu waxay ugu qaadatay iyo safaradiisu 8 bilood intii kalena waxay ahayd intii aan deeqdii lagu soo bandhigayay iyo deeqdii lagu daabacayba aanu raadinaynay dhibaatooyinka qoraayada hortaagan shalay waa laga hadlay oo qofku markuu waqti ku bixiyo sidii uu wax u qori lahaa haddana caqabada ugu horeysa waliba dadka dhalinyarada ah ee anigoo kale ah haysta waxa weeyaan cid gacan ka siisa baan ahayn Soomaalidu dhibaato haysata magac bay wax siiyaan laakiin ujeedo wax ma siiyaan waxa laga yaabaa maanta 10 sano kadib halkan taaganahay inaan hadii Ilaahay naftii daayo inaan ka sareeyo maalinta waay ma cid buugii daabacda maalinta waay ma cid waxay qabata laakiin maalinta aan bilaabayo lama oranayo qofkani wuxuu wado baleega laakiin waxa leeyahay oran ma yar weeyaan buugu 7 qiso ku qoran waxaan u tagay 7 magaalaan u tagay 5 magaalaan u tagay sidii aan 7 qiso u qori lahaa dhammaantoodna waa xaqiiqa waan ku hooyooyinka danyarta haysta 7 qiso waxa ka ururiyay waddankeena Soomaaliya haw badato waqooyiga oo aan ku noolahay maadaama aan arday xayawaan gaari karin magaalooyinka kale laakiin waxa ku jirta qiso ka dhacday Garowe iyo qiso ka dhacday Hargeysa Muqdisho oo aan labada hooyaba Hargeysa kula kulmay iyagoo hawlo caafimaad jooga buugga waxa ku qoran sidoo kale maansooyin gaagaaban oo aan leeyahay oo taariikhta iyo hooyada labadaba ka sheekeynaya labaan idin wadaagi doonaa hadii waqtiga Ilaahay ii saamaxo insha Allah maansooyin ugu horeysa waxa la yiraahdaa xabsi tahriib wala beeray waa xabsi iyo tahriib waxaan naqanaa xabsiga dadka lagu xiro laakiin waxa jira xabsi la yiraahdo tahriibta oo ay hooyada kaliya lagu xiro markuu ilmaheedu ka tago ama intuu wadni ilmaheedu saxaraha iyo uu ku sii socdo dhalandhoolka uu ku tagay uu doonay inuu ku tago Yurub ku galo xabsi tahriib waxay curatay 2015kii waxaan ka sameeyay qiso dhab oo ku dhacday wiil aan saaxiib ahayn bas xumaa istaan qisada idin ka sheekeeyo uu ku qoran tahay buugga laakiin waqtiga oo kooban qisada insha Allah buugga ka heli doontaan waxay leedahay waa hooyadii oo hadlaysa marka waa hooyo aan waxba haysan wiilkeedii ka tagay oo ka tahriibay iyadoo shakhsiyadeedii la hadlayso oo waxna ma haysto wiilkeedii kama samri karo xagaas wax u doontaa ereyga dhunyaal baan ku bilaabayaa dhunyaal Soomaali ahaan waa tahriib baa la oran jiray sidaan dad waaweyn ay sheegeen oo awooyaal iyo abayaalba tahriib waa erey Carabi ah dhunyaal iyo dhalandhool in la oran jiray waan filayaa waqtigii hore
xumaa dhunyaal xumaa waayuhu xagal gaabanaa xarfaha sannaduhu yaraa xilkiisa qofaad sidood xumaanta ka dhowr lahayd xajiinta ka waab lahayd markuu ku xiqdiyo xumaa xaqay hooyadu lahayd xisaabtay kaa mudnayd qofaan garanayn xumaa markuu curadkii xulnaa xurmayn jirtay ee jeclayd tahriibta xigsado xumaa xabuub baan iibiyaa xawaashkana waan gadaa cadceeddaan xiiqayaa xabeebe afkii dartaa xubnihii socod way gabeen xabsay ku jirtaa naftani haddana xilkii hooyanimo xasanow weli waan sidaa magafe adigay igu xidhay xabsiga adigay dhex dhigay xabadda adigay igu ganay hurdada adigayga xaday adaa fikirii xidhxidhay xalaal baan kuu dhalee xumidaa wiilkaygiiw ma hayo xoolo iyo lacag xamaal ma aqaan anigu xabaasha haddaad gashana xaq weeyaan geerudiye miyaan kuu soo xadaa wiilkaan ku xasili jiree hurdada ku xurmayn jiraa xujiyo fikir igu dilo taladu way iga xuntee ma xoolaan soo dhacaa oo xaaraan baan cunaa sidaan yeelaa xigtooy xaggaan aadaa haddeer ahay dhunyaal xumaa nuurkii xubnahaad ahayd halkuu ka taagnaabay ka sheekaynaysaa nuurkii xubnahaad ahayd hantiyo xoolaad ahayd xidiga bulshadaad ahayd xadhigga nacabkaad ahayd xulkii ubadkaad ahayd indhaha kuu xiisi jiray xulbaad hooya ii ahayd maxaad u xigsatay tahriib maxaa dhibta kuu xadiday xalaal baan kuu dhalee xumidaa wiilkaygiiw hal daqiiqan ku darsan doona waqtiguu iga dhacay aad iga raali ahaada waxaan ku dari doonaa maanse la yidhaahdo utur hooyo ah tahriibi maansadan ugu horreyn anaa nafteyda kaga sheekaynaya iyo sidaan waddankayga u jecelahay talabaad hooyaan ugu hiilinayaa tan saddexaadna dhallinyaraan ugu tilmaamayaa xaqa hooyadu leedahay toos baan u geli doonaa insha allah utur hooyo oo ha tahriibin hana taya xumayn taladaada godka maansadani waa godka hagarlaawan la yidhaahdo utur hooyo oo ha tahriibin hana taya xumayn taladaada ha ka tegin iftiinka dalkaaga hana tegin talyaani dhulkiisa ha ku tolin xiskaagana taylan ha ku tuman rajada ummadaada ha takoorin ruuxdiiyo maanka ha ku toosin dhaawac naftaada ha ku dhiiran tuug bahaloobay waa magafeer ha ku dhiiran tuug bahaloobay ha ku dhaadan taaha badweynta ha ku dhiman tabaalo rafiiqla yay taladu kaa dhicisoobin tacabkaaga yaan laga quusan tusmadaadu yaanay hallaabin tooshkaagu yaanu daciifin tasho oo adigu tacabeero tacadiga ka daa qalbigaaga taageer horuu marka maanta ka tijaar dhulkaaga wanaagsan wixii tegay ka saar niyadaada toban laab adoo xor ku seexda bal maxaad u tiigsan qaxooti iyo fooq ka taagan maraykan rabbi kuma badina ha tallaabin utur hooyo kaa tabanaysaa tacabkiiyo dhibtay u maraysay tala xume inaad heer gaadho toosoo hurdada ha macaansan ka mid noqon raggaa tartamaaya la tacaal wakhtiga isrogaaya taageer kalsoonida maanka iska tuur waxaa ma awoodo tiirkana u aas rajadaada taladana raxmaanka u dhiibo waxaad tahay haldoore yaqiinso una sheeg naftaada tasowday taariikhdu waa mahuraane tirso maalintaad fikir boorto beritana u toos midhihiisa ha u turunturoon cadowgaaga ha ka nixin hadduu ku takooro taash buu ku saari hadhow ugu sheeg si togan qosolkaaga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu